السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي كسور دوادا جنال كينا قصوين هدبا جنال كان وحضو قبرتين إنان مرول بايدين كقصو قد بنو قصوين آد عجيبوه وانو إسلانا هاي وقصوين ربا تدكنا أي وحبدا كبرا كرار وأي كفائيدي كرار هدبا قصدنا تضبات كان وحينو كقهد لدورنا قصو لياب له oo ka dhacday sanadkii 1992 dalka Lebanon gaar ahaan magaalada Beirut caasimadda dalkaas qisadan waxay ku socotaa nin la dhihi jiray Jamil waa wiil dhalinyaro ah oo 30 sano jir ah xilligaas wuxuu ka dhashay qoys taajir ah oo dhaqaale fara badan haysta oo shirkadahoodu gudaha dalka iyo dibaddaba ay ka shaqeeyaan aabihiisa wuxuu dhalay isaga iyo gabar kaliya laba cunug kaliya ayuu dhalay odaga Jamil aabiis oo taajirka Jamil waxbuu bartay iskuulka jaamacadda qaybta dhaqaalaha iyo horumarinta ganacsiga waxaasoo dhan soo bartay waa nin aad iyo aad aabihii ula shaqaynay waa nin ganacsigooda qayb weyn ka qaatay kobcintiisa cilmigii uu bartay iyo dhaqaalihii uu bartay si wanaagsan ugu shaqeeyay waa nin edeb leh oo odaga aad u ixtiraama aabihiis qoysku way iska degan yihiin noloshu way degan tahay lacagtooda way ku raaxaystaan meel uusan dunida tegin waa yar tahay Yurub Faransiiska ha dhihin Ingiriis ha dhihin meel walba yaraantiisa la geeyay marka waa qoys yaraantoodii Ilaahay dhaqaale siiyay oo macnaha aabihiisoo dhaqaale leh ayuu la koray ilaa uu ka weynaaday dhaqaalihii wax ka maamulayo shirkadihii isagoo dhalin yar mas'uul looga dhigay ninkan marka aad uu ganacsiga uga shaqaynayay waa 30 jir markan waxa la gaaro yiri xilligii bal aan guursan lahaa yaa ii qalma gabadha aniga ii qalanta ee aan guursan lahaa ayuu bilaabay inuu maaragtay raadiyo maalin maalmaha mid kamid ah makhaayadaha waaweyn ee dadka taajiriinta ah inta badan iyo dadka caanka ah ay tagaan ayuu ku arkay gabar aad u qurux badan oo ka shaqaynaysa oo dadka cunnada iyo dalabka iyo ka qaadaysa ninkan Ilaahay amarkiis gabadhii la dhacay quruxdeeda ma sha Allah wuxuu isirinayo gabadhanu umaba qalantaba maqaayadan inay ka shaqayso ee gabadhan bal la sheekayso waxay u eg tahay gabar xoogaa iska danyar laakiin qurux badan waaba noocii aad raadinaysay halkan dhinacyada dhan markaa ka fiirso ku leeyahay waaba dooqaygu dhahay ninkan gabadhii oo la sheekaystay telefoonkeedii iyo waxeedii iyo gurigii ay deganayd iyo wixii ka qortay waagaas telefoonada gacanta aad ay ugu yaraayeen Lebanon laakiin telefoonada guriyaha iyo meelahaas jiray ninkan gabadhii marka xiriir la sameeyay gabadhii oo la sheekaystaa way wada kulmaan markii dambe wuxuu yiri dhageyso shaqada meesha aad tagayso iska jooji maadaama ani adiga aan wada socono qarashkii halka akeeli lahayd anaa ku siinaya iyo ka badan aniga qof noocaasaan ahay nin taajiraan ahay aabahay waa taajir adeeno waa taajiriin hadee nolol barwaaqaad galaysaa waxaan kabaryeerigan iyo meelahan aad socoto iyo waxaas wax nafle ma gabadhii waxay tiri nimca ku soo doonatay ma sha Allah markay muddo sheekaysanayaan ayaa gabadhii marka waxay ku tiri warniyahow saaxiibow aniga waxaan rabaa noloshayda inaan wax kaaga sheego aniga horta waligay hal nin aan guursaday tir
haye halkaas ninna si qarsoodiyaan isku guursanay 2 bilood markaan isqabnayna waan kala tagnay haye laakiin aniga reerkayga iyo dadkayna iyo waxay ii haystaan inaan wali gabar ahay kan marka mashruuca lagu furayaa waxba niyada loo siiyay حسابته كوسي درسواي دغا ماشا أد أسعته ولو كلا بحي مركز سيداس هذا كوقا ليزو يا دي كلني كان روتا روشاي لكن قاب وحلوغو شاي غير مقال نما نكان مركز قبلنا جعيل كيدي وأسي قاضي ومعلم بمعلم تكدم بيسا أيها كوسي حوغيش كان وحوشي قبلنا نن حل بالغبي يوحاسي مع وحبكا علين ميان شقوبة كوسي قبطو يصير نكان وحويري راليا كاير ويهشيين إني إسكور سداني كوهشيين معلومات كودي وحوذ إنتاس بسال ليسناف صدي وحي كلام مركشة كذي يا صعطة نكان قبلني وسوك حي مركو مدل السعودي وقعان صدي إنو قرصدو أبيه سوكان أبو حريري نكي ويلكي جميل هواي أبو قبلنا وان عالمضي وان جعلالي ويلكي قبر ما جعلاني هاي قبلنا وحان ربا إنا قرصدو برشو وناكسن هاي واكتا شلطو ناوري قبلنا سبوتي وضاقو مركا وحبا والله إنو ويلكا لا هدو ربا gabadhii uu gurigeedii geeyay uu soo laabtay uu yeeray jamiil tacaala kaale uu imaad gabadha iga sheekeeyay xagee ku baratay maxay tahay reerkoodu xaguu degan yahay sidee yihiin annagu de waxa leeyahay aabo si fiican ii dhageysaa leeyahay odayaasha waliba way kaliin hantida ilaahay markuu dadka qaar siiyo kibir iyo isla weynin iyo waxba galaya qofna hanti kasta asagoo leh umadaas isaga dhex jira saaxiibadiisa ma lumiyo dadka dariska dadka masaakiinta caawimaadooda ma lumiyo dadku markuu waasaas laakiin markii daraasad la sameeyay dadku inay lacagtu kibriso ayaa badan macnaha dadka ilaahay markuu dhaqaalo siiyo kibraya way badan inta aan kibrino umadooda kamid ah oo waxa kan ilaahay inuu siiyay baritan ka cishan kara aaminsan aaday u yartaale nisbada markii lagu sameeyay macna farqiga labada dhinacay badan markii la yiraahdo marka dhanka odaga marka dadka xoogaa isla weyn ku jiro markaas wuxuu dhageyso annagu waxaan nahay caa'ilad ama qoys magac kule Lubnaan dadka hantida ugu badan haysta Lubnaan ku jirnaa shaqaalo dhowr kun oo qof annaga kaliya noo shaqaysa shirkadeena ka shaqaysa marka marrabo aniga gabar aan adiga ku qalmin oo macnaha gabar adiga noloshaada iyo meesha bay'ada ay ka soo kortay iyo dad macnaha caa'ilad annaga nala siman oo kale oo macnaha oo hanti haysta oo magac leh dadkaas rabnaa marka gabadhan iiga sheekay wiilka wuu yaabay xur aaba gabadhan waxaan ku bartay makhaayad iyadoo kabaryeeri oo miskiin oo shaqaysanaysa la hawla wala quwwata illa billah odagii makhaayadii kabaryeeri kayd markii la yiraahdo istaaga qolkiisu iska aad aabo sidee wuxuu jiraan waaba iska xarooday oday fajista oo aan caadi ahayn meeshu iska galay wiilkii wuu yaabay dhowr maalmood kadib waxay isugu yimaadeen guriga meesha qadada odagiyo jooga joornaal akhrisanaya wiil aabo wuxuu yiri maalin hore arin baan kaala hadlay fadhiga iiga kacdo yiri waa iska xarootay marka aniga arintaas aaday muhiim iigu tahay inaad iga aqbasho yiri aniga waxaan ahay alwalad alwaxiid wiilkaaga kaliya aad haysato oo maartay wax ku weydiistay gabadha maskiin haato ma yeeshan ahaanin aniga ana dookhayga tahay haday maskiin tahay ana taajiro aabahay baa taajiro reerkeena taajiro ilmaha ay dhashay taajiriin bay noqonayaan maxaa laga galay reerkooda waa soo ka haysanayna gurigayga ka sanay
ee aabbo gabadha waa jeclahay ii ogolow odaga marka xariif u ah wiilka markuu arkay inuu arinta ku dhagay oo wax kasta uu sheegay uu qaadan waayay wuxuu yiri marka dhagayso waa aqbalay laakiin bishart annaga inaana ceebeyso iyo ceeb inayna soo gaarto ma rabno reerka gabadha u tag soo fiiri meesha ay degan yihiin haddii meelaha qaab ka daran oo xaafadaha buushadaha iyo isku raranta iyo meelaha ay degan yihiin dee waxaas waa ceeb guriyaan u gadaynaa meelaha magaalada fiicanoo dadka akhyaarta degan yihiinaa reerkooda dejinaynaa guri weynaa u gadaynaa intii annaga fiiri odaga waxa kaliya uu ka caraa waa ceeb inuu ceebeebuu ka cabsanaa oo la yidhaahdo cid sabooloo wiilkiisa ka guursaday marka ciddii xoogaa in la dhisaa la rabaa la habeeyo inta aan laga guursan ka hore isugu toosto waayahay yidhi aabba anaa taas baa iskasara adiga ka welwelidaalin wixii dhaqaalaa ani mar rabaa la yidhi wiilkayga reerka gabadha markuu soo salaamayo inuu xaafadaha dadka isku rarantaa iyo dhiiqada iyo bacaadka iyo meelaha inuu galo marka reerkaasu hadday meeshaa degan waa ka raraynaa guriyaan uga gadaynaa xaafadaha dadka qadeeyey oo sida fiican u qadeeya meeshaasaa dejinaynaa waxaan u ekaysiinaynaa taajiriin dad xoogaa isku toosan annagana ku biilayna meesha inta aa gabadhooda qabtay waayahay aabbooyin wiilkii wuu soo ogaaday gabadhii waxayba degan tahay sidii odagu sheegaya xaafado isku rara dadka tacbaankaa degan yihiin oo iska saboolka ah ninkaa marka sheekadii u bandhigay wixii uga sheekeeyey aabbahay xujadaas ugu xeruu yidhi reerkaaga iigee reerkii u tagay ula sheekaystay wuxuu yidhi waxaan rabnaa inaan guri idiin gadno reer iska maskiin oo guryo joqoshaa isaga jira oo la yidhi guri fillaal la idiin gadaa magaalada laydinkaga gadaa biilkiina ha ka welwelin ma ayagaa diidaayo waxay leeyihin waa soo dhaweynaynaa arrintaa waa maasha allah wiilkii wuu soo kaxeeyay gurigii u gaday weli ma guursan guriguu dejiyey waa isugu toostay gaari yaroo kusoo adeegtaana loo sameeyey shaqaalaha loo qabtay waa iskugu toosiyey odagii soo laabtay aabba shaqadii waa qabtay meeshii aad sheegaysaan ka soo saaray xaafad heblaayo oo meelaashaas oo dadka xoogaa roon ay degan yihiin aan soo dejiyey hawshooda waa isugu toostay hadda marka waa doonan karnaa okay yidhi guri aan tegi karaan rabaa marka aniga gabadha ka doonanayo haye guri weyn aan u gaduudhahay oo ganjaal oo ku caroodhaha baabuurka dadka dariska xataa waxweyn ma aba okay yidhi oday baa la soo kaxay waa soo labisteen asaga wiilkiisa iyo odayaal kale waa la soo raacay gabadhii reerkeediyaa loo yimid gabadhiyaa la weydiistay waa isugu toostay hawshii waa la ogolaaday ma nin lacag haystaa wax laga hor istaagi karaa reerka maagaa gabar diidi kara gurigaaba loo gaday waaba yaaban yihiin nimcaaba soo doonatay ninkii marka gabadhiyaa la siiyey waa loo guuriyey ninkaan guriga la degay gabadhii maasha allah isugu toostay jacaylkii waa sii laba kacleeyey nimcadii way isugu toostay wiilkii shirkadihiisu ka shaqaystaa gabadhii waxay u dhashay 5 cunug 5 markay u dhashay kii lixaad uurkiisa markay qaaday way xanuunsatay aaday u xanuunsatay marka dhiikar iyo waxyaabo badan oo uurku la yimaado iyo mushkiladahaas ayaa lagu soo sheegay marka waxaa la yidhi nasiino badan ay u baahan tahay daryeel badan ay u baahan tahay wax badan marka dhakhtarku wuxuu kula taliy wuxuu yidhi gabadha kaxee ayada iyo caruurteeda reerkooda u gee ilaa ay ka dhalayso hooyadeed iyo walaaladeed iyo hala dhex joogto ha ka warqabeen maadaama adi mar walba aad shaqaynayso safrayso hawshaas okay yidhi gabadhii waa la soo waday iska xanuunsadeen gurigooda u geeyey gurigii oo ay deganaayeen waa guri weyn oo qasri oo kaasuu u geeyey macal ciyaalkiisaa la geeyey asaga kiisuu ku haray asaga marka wuxuu leeyahay 2 saaxiib xasaam iyo cali mid la yidhaahdo caligu waa nin aada u fiican waa nin waxbartay oo iska shaqaysta laakiin dadka dhaqaalaha leh ma ah laakiin dad waxbartay
oo shaqeeya waa nin injineer iyo guryaha iyo dhisa mashaariicdoodu kala shaqeeya macnaha shirkadahooda qandaraasay siiyaan ninkan uu iskala shaqeysta cali yaa leeyahay waa isku da jaamacadahana waa isku meel jaamacada dhigan jiray laakiin laba kuliyadood ninkan dhaqaalo bar ninkan injineer marka isku meel isku barteen isku ay shaqaanaan midka kalena xazaama leeyahay saaxiibkood waaye dugsiga sare isla dhigan jireen way shaqaanaan marka laakiin xazaamku waa nin aan caadi ahayn waaye kalaabiyada qamriga meelaha xunxun waxa isku xireen kan caligana waa nin fiican labada marka saaxiib uu leeyahay ninkan jamiil saaxiibadiisu waa ninkan marka gurigiisu iska cidla waay islaantii gurigaasuu geeyay caliga marka uu imaanaa way isla sheekaysaa caliga markuu ka tago xasaamka imaanaa xasaamku wuxuu leeyahay orniyo meeshaan waa ku cidlootay borin aad dareemaysaa haye warniyo meel kalaabo meeshaan aan tagaynaa muusiga ka jira kana ka jira saasaa ka jirta warniyo aniga waxaas weligay maadina ma iga dhaaftid u dhii ninkaan de waa runtiis waa nin shaqo waa nin ganacsi waa nin ganacsigoodii waxaan ku waxyaabahan xunxun iyo kalaabiyada iyo qamriga iyo waxa kan iyo ninkaan ma geli jirin xasaamka marka wuxuu leeyahay warniyo gurigan aad joogtid shaqadan aad ka soo baxayso borin waa iraac waa ka diiday ninkaan caligii markuu yimaad u sheegay wuxuu noo ninka xasaam ahaa aasaasi leh caligi marka taluu siiyey wuxuu niyow dhagayso ha isku tegin meelahaas kow nin caana tahay famil lacag lahaa ka dhalatay meelahaasoo kale iyo qashinkaasoo kale iyo dadkaasoo kale iyo yaan lagugu arkin midda labaad wuxuu yidhi meeshaas haddaad tagto waxyaaba xunxunaa barane kow naagaa baranaysaa banaati layliya layidhaha af carabiga naaga maaragtay habeenkii iska qaraabta oo kalaabyada iyo taga iyo waa baran doontaa qamrigaa baran doontaa daroogadaa baran doontaa marka waxaas nin dhalinyaraa tahay 30 jira qarka u saarantaa wax kasta inaa samayso waa tijaabiya islaad marka wuxuu yidhi ani saaxiibkaan ahay nin maaragtay xaasi caruur laha tahay hawsha ka joog okay ninka marka caliga wuu waaniyaa xasaamkana fisqiguu rabaa inuu geeyo ninkaan marka labadooda way ku wareer ninkaan markii dambe soo u qalqaalinaya shaydaana marka imaana mug shaydaankiya ninkaan xasaamkii u raacay waa la soo wada ninkaan gaari cajiib ay soo qaateen waa la soo baxay kalaab VIP oo macnaha dadka lacagta le tagaana ku geynaa leeyahay aniga meelaan dad lacag la tagin oo dadka dhan oo imaanaa dad wada mashhuuriin waa fanaaniin caana dad kale dad lacag haysta waxaasa meesha imaanaya leeyahay adiga qamriga cabir haddaan rabto annaga iska sharaabayne adiga muusigan iyo waxaan dadka ciyaaraya iyo waxaas iska fiirso inta meeshaan cidlada joogi leed islaantina waaba ka xanuunsantaa waa maqan tahay xasaamkii ninkii waa soo waday meeshii kaan meeshii markuu keenay kalaabkii la soo galay muusigii nalalka waa la gaabinayaa waxbaa jug meesha leh gabdhaha marka yimid xasaamka uu yaqaanaa gabdhaha mid ka mida gabdhaha aad bay u qurux badan tahay iyadan ninkan marka meeshii joogay gabadhii oo meesha la soo fariisatay oo kalaabka soo gashay ayuuba ninkan wuxuu yiri gabadhan halay baro yaa dhahaya jamiil oo soo galay muujeeda gabadhii alla baray ahlan wa sahlan magacaygu waa jamiil waa kaas ninkii kala sharaxay marka jamiil waxa waaye rajul a'maal macnaha nin taajir waa aabis taajir waa shirkadan hebel leeyahay mantaqaan oo baabuurta keento midaas saas mantaqaan ayaga iska leh midaas gabadhii way yaabtay ninkan waa nin iska dhalinyaraa waa la isbartay waa la soo macaamilay bas markii la soo baxay markuu wuxuu yiri waa ku casuumayaa jimca okay tiri xagee degantaa meesha casuumaad ninka waa casuum meel soo yimaadeen ninkan wala sheekayst ninkan marka kalaabka markuu tagay qamrigii horta ma cabin laakiin gabadhaanu soo gashay u fiirsada gabadhii soo gashay hawsho meeshuu tagay gabadhii uu la qaday meeshii qadaa loo sameeyay gabadhii uu la qaday
gabadhii ninkaan wuu ka helayba waa nin dhallinyaraa mog gabadhii uu ka helay islaantuna way ka maqan tahay way xanuunsan tahay islaanti ninkaan markaa ula sheekaystay uu ka helay dhowr mar isku yimaada hadiyado u qaaday wuu wadaaya meel carabuu geenaya alaabta maxaa u baahan tahay dharkaan labiskaan baabuur buuxaa la iska siyaa waxaasuu agtiisa waxba ka maaha dee gabadhii dhulkaa la wareegayba gurigii ninkaa isagoo jooga caliyaa yimid cali waa sadiiq aada u fiican saaxiib aada u fiican cali wuxuu yidhi niyahow meeshii ninkii xasaam waa aada warniyo maxaa u aaduu yidhi meeshaas aniga waa kaala taliyuu yidhi niyow meeshaas dhibaataa kaala kulmaysay hadda ha ku laabaninu iska joog waayahu dhaa cali wuu iska tegay xasaamkii a imaanayo xasaamkii markuu yimaado waa la sheekaysanayaa wuxuu leeyay niyo qoftaas ka war warniyow dhegaysuu dhahay qoftaas maaha qoftaan waxaa la yidhahdaa banaati layliya gabdhaha habeenkii lacagaa siinaysaa waad la seexanaysaa waxaasa samaynaysaa waa dee waa kala tagaysaan quruxdeeda iyo waxeeda iyo maxaa ka rabtaa xaasi carruur baaba leedahay waa qalqaalina haddana ma ujeedaa ninkaa okay ninkaan gabadhiyaa timid gaariguu kusoo kaxeeyey gurigii xaaskiisii ay ka maqnayd uu keensaday gabadhii uu kasoo watay kalaabka ilaahay markuu dhibaato qoorta kuu gelina waa barkaan oo kale gurigiiya timid meel bannaan oo jardiino meeshaa la fariistay meeshaa lagu sheekaysanayay ninkaan marka gacanta waxaa ugu jira faraantiga inta badan dalalkan carabta iyo eeshiyaanka iyo waxa kan muslim ha ahaado ama gaal ha ahaado waxa waaye muhiimadda wuxuu caddaynayaa inaad tahay nin xaas ah oo maaragtay xaas leh inaad tahay gabadhana iyadana haddii nin ay leedahay iyaduna saas oo kale faraantigaas marka gabadhan way weydiisay waxay tiri maadaama faraantiga gacanta kugu jiro muxuu yahay weli waa la sheekaysanayaa bas meel barxada barkad biyo ku jiraan saas biyuhu ugu shubmayaan nalalku saas u shidan yihiin waa guri nin lacag leh uu iska leeyahay meel walba laga shaqeeyey jardiinada xataa dadaa ka shaqeeya meeshaasaa la kor fadhiyaa weli markaa camaliyaadkii ama qolkii qalliinka iyo lama aadin weli marka sheekadiyaa socota laakiin waxay aragtay faraantigii markaasuu yidhi xaasaan leeyahay carruurna 5 carruuraa leeyahay aaway tiri hadda gurigooday jirtaa maxaa dhacay uurkii lixaadee ku xanuunsatay marka way dhali rabtaa halkaasaa u wareejiyey magaceeday tiri magaceedu u sheegay way yaabtay way naxday markaasay tiri heblaayo miya 3 magac aabaheed iyo awoowaheeda sheeg oo gabadha uu qaba waayaa markaasuu yidhi waa iyada waxay tiri aniga saacaddaas laga bilaabo albaabkaasa ka baxaya sabab maaya tiri ma kula jooga anig waay ma jirta tiri oraa waxna uma sheegayso naagtii waa istaagtay boorsadeeda ay qaadatay soo baxa hor maxaa dhacay kaale isagoo la dhag soo baxa tagsay soo qaadato iska soo tagtay ninkanda waa kibirsan yahay yaraantiisaa lacag lagu soo koriyey cidaa kaa daba hadli karta iyo cidaa maaragtay adiga warkaaga diidi karta iyo gabadhaa soo kaxaysataa ku diidi karta iyo waxaas ninkaan maba ka laalacsanaba ninkaan isagoo xanaaqsan oo habeenkii dambe meesha kalaab ka tegay xasaamkii u yaala wuxuu yidhi gabadha maxay ahayd gabadha de waa kuu sheeguu yidhi gabdhaha meelaha yimaada dadkaan lacagta le waxaan iyo ka qaraabataa gabadha waa iga soo tagtuu yidhi waa diideen maxayt wallahi niyo ma aqaano yidhi sababtay kuu diida ma la dirirtay mayuu yidhi lacag intaasna waa siiye meeqa lacagaa siiye maxaa dhacay maxaa aniga maxmaa iga qaldan yidhi maxaa kaa qaldanaan yidhi adig maxaa kaa qaldanaan isugu kaa toosan tahay marka ma naqaano yidhi ayagoo marka meesha ku sheekaysanaya iyada iyo 3 kalaa soo galay xasaamkii u yeeray labadii kale way yimaadeen iyada waxay tiri ma imaanayo ninkaas meesha jooga ma imaanayo xasaamka istaa maxaa dhacay maxaa kugu dhacay waxay tiri ninkaas aniga agtiisa ma tagaanin maxaa dhacay ma aqaanay tiri wax dhacay waa la yaabeen
ninkaan markii gabadhu xasaamkii soo laabtay wuxuu gabadha way diiday meel kale niman kale la fariisatay marka mid booliis oo saaxiibkiisu telefoonka inta ku wacay wuxuu yiri iimow maxaa dhacay saddex gabdhood aan rabaa inaa ii xirto hadda moogtahay wadamadan iska tabcaanka afrikaankan iyo carabtan iyo wadamadan de cadaalad iyo waxba ma jiraan ninka booliiska lacag hadaa siiso maanta oo dhan qofka ii xirtira iska ka xiraa booliiskii way yimaadeen saddexda gabdhood loo tilmaamay dhag saddexdoodii way qabteen dadkii baarka joogay yaabiin dhab waa la xir gabdhihii way yaabiin waxay maxaana loo xirayaa maxaa haleen marka la joojiyaana banaan la jiifiyaana banaanti waay sharciga wadanka u yaala ma ogola banaat layliya wax la yiraahdo gabdhaha habeenkii qaraabta waa mamnuuc marka booliisku marka waa inay u sameeyaan inay u sameeyaan waxay yiraahdaan waxa naloo sheegay inaad hawlahaas ku jirteen marka saas darteed sharciga wadanka ma ogola dhab waa la xiray way yaabeen gabdhi habeen kasta meesha nimada meesha tagaba sharciga hadda ana la ku qabanaa maxay way yaabay markii dambe gabadhii marka labadii gabdhood oo kale iyo gabadhii ninkaan marka uu yimid gabadhu calaamaday wuxuu yiri labada gabdhood oo kale iska siidaa taas hay labadii gabdhood oo kale waa daay tii marka isaga diiday ayuu marka calaamaday tii marka ninka oo askar sargaalka la fariistay wuxuu yiri dhageyso maxaa u diiday Jamiil runta la isu sheegaa markaan waxa jira Jamiil ma soo xare ha wuxuu iga rabaa waxa kama xadin waxa ma dhibaateen wuxuu iga rabaa laakiin waxa ii sheegtay inaa igu soo xirtay arrintaas ma arrintaas dambigaas annaga ku haysana ee Jamiilna maxaa dhacay waxa tiri Jamiil hadduu soo xiray inaan la hadlaa rabaa iikan okay Jamiil loo ay uu tigi meesha ايشو فريست هاي waxay tiri dhageyso niyo aniga ina faraayiga qaada ku fiican sabab waa ii diido yiraani maxaa sababta ii diido maxaa iga qaldan aniga qurux ilaahay baa isi nin dhalinyaraan ahay lacagaan haystaa waa aniga iga carartay maxaa dhacay hadda waxa ku fiican tiri ina iska kay dhaafto oo ruuxa ku dhaafay maloor meeshaan ku jiraysaa ninka booliiskana waa la sii hadlaya waliba lagu garaacaya waraa dhageysi tir marka waraa ku ayo hay gabadha heblaay leeyahay oo aan qabto hay saaxiibtay lillahi wa ay kalaabka hadda aan isku baranay ayay ila imaan jirtay iyo kalaabyo kale ani ayada waxaan ahayn fariya faraanti banaat layliya waa waxa guursatay gabadhaha habeenkii qaraabto waa mid shanta cunuga ku dhasho xaaskayga alleed waraa aniga waxa san diidanay tir inaan aniga gabadhaas masaakiinta ka furo niyo aniga faraaga qaad meesha ay tag saaxiibtayna ina khiyaamo mar rabo adi hadaa naagtaada khiyaamis ahlan wa sahlan niki firida ku yeeray wayaabay oo makaruna هايتر أنا كل شيء قايتر لكن أنا واحد دنبي كلام كاجل مره إنا قبضنا صاحب ده يا خيامة درتي ذا كاجتي أديك لكن إنا حاس كا خيام تدياره واحد كي بوليس كوا حول سيدا ولا سيدا علي أيم صاحب كيسي في عناف نكي يوم مضحى هيستا علي ويم قرقي سجون جميل محل عيواي ورعلي نيو وحسا قرعيين لا حول ولا قوة إلا بالله نعكت مساسي ترها محاسكا أساسي أيضا ترها نيو أني واكو شوين وحان كو إريوين ورنيه مالها حرحرها اسكتي كلاب يقشن يبختي هذا تجي لهين حاسكا واسكا قبلها لقيا بحاسكا كتير مدة اسقبتين إني توبت كنت توبت وابناته أنا قبر في عن قطي انت اي كula joogtay ma waxba ku aragtay may gabar baariyo fiican oo helo salaada aniga iga fiican rabadaanta soonkayga fiican waayu dhahay hada wuxuu yiri gabadhu de way toobad keentay taayibad waay sida muuqata waxaas laakiin hada mushkilada aniga waxa ku yiri meelaha saadi hada waa tagtay maxaa ka soo heshay hada waa kaas hada xaaskaaga adiga waa kala dhibanaysan khalaas de taladeedana waa diid
ninkii waa fakar gabadhii markay dhashay u yaal gurigooda iyadoo joogta ayuu ugu tagay meeshuu kula sheekaystay markay dhashay cunugii lixaad ay dhashay iyadoo fiican markaasuu wuxuu yidhi dhegayso adigu ma ahaan jirto yidhi banaati layliya gabdhaha habeenkii qaraabta ma ahaan jirta way aamusta kalaab hebel iyo meelahaas ma tegi jirta way aamusta ii sheeguu yidhi takallami hadal markaasay tiri haa laakiin khalaas waxaas mar horaa ka toobad keenay waa taa isguursanay awlaad dhalnay maxaa hadda soo celiyay waa khiyaanto yidhi kuma khiyaaminay tiri aniga ilaahayaa dembi ka galay waa ka toobad keenay adiga maxaa kaa khiyaama adiga waa is waraysanay aniga waa laysoo habaystay waa ku marka hore aan kuu sheegay adiga sideedaa igu qaadat laakiin wixii dembi aniga aan galay ilaahay anay naga dhaxaysa aniga ilaahayaa u toobad keena laakiin aniga adiga waxba imaadan weydiin maxaa dhacay khalaas u dhacay khalaasay tiri nagu kalowd ninkii dacwad dalaaq uu gudbiyey gabadhii wuu furay 6 ilmood iyo gabadhii iyo reerkii meeshaas iska degeen gurigoodii weynaa iyagaa markii horeba lagu qoray reerka gabadha way qaateen aabihiis iyo isagu way isku dhaceen mar horaan kuu sheeguu yidhi waxaan ka fiirsaan ku idhi sheekadii way ku xumaatay ninkii markii dambe jamiil ahaa wuu isku wareeray isaga dhan meel laga jiro aqoon waaye sheekadii way faaftay saaxiibadiisay gaartay ninkaan gabadhii uu guursado taajirka ahaa jaraa'idkaa lagu soo qoray ninkaa ceeb darteedu inta cararay uu maraykanka u guuray uu meel layidhaha Los Angeles oo ilaa hadda ku nool yaaliyo aabihiis xataa uu ka tegay marka adduunku waa kaas marka aad meelo khariban tagto dad khariban warkooda aad dhagaysato meel khariban aad ku dambaynaysaa dadka fiican saaxiibada way kaliyiin saaxiibka fiican ee wanaagga kaala taliya dhagayso saaxiibka khariban iska ilaali weligaa yuusan baholka ugu ridin haddaba marka qisada cajiibka ayaynu maanta soo qaadanay wixii aad bal ka faa'iideen noo soo qora ama aad ka ogaateen oo aad xigmada ka hesheen inta aan mar kale kulmayna iyo qisooyin kale asxaabay la gareeyo sheergar nabadgelyo